ogaalside oo ah channel u heelan in uu abuuro kacdoon aqooneed oo horumariya miskaxda iyo maanka bulshada. waxa uu idinkugu bishaaraynayaa in aanu soo gudbinay channel cusub oo magaciisu yahay ogaalside. adeegan oo ah mid dhegaysi ah, ujeedad aanu u aasaasnay channelkan ayaa ah waa in dadka aan haysan waqti ku filan oo ay wax ku akhriyaan loo helo jidkaas oo ay ku heli karaan murtida ku qoran buugaagta ay soo saarto Soomaalidu iyaga oo dhammaystiran. jidkaas oo ah mid dhegaysi ah. haddaba channelka ogaalside wuxuu mar walba idinkugu heelan yahay soo gudbinta buugta duuban oo lagu magacaabo podcast. waxaa kale oo taas ku dheer in uusan muuqaalku ka qaadan doonin waqti badan oo muuqaaladu ku kooban yihiin 10 ilaa 15. waxaa ka codsanayaa dhegayta in aad horumarisid miskaxdaada oo si joogta aad ula socotid hoyga buugata ee ogaalside. waxaa intaa ku dheer in aad waqtigaaga dahabiga ah ee muhiimka ku ah in aad kaga faa'iidaysanaysid kobcinta iyo horumarinta naftaada. fadlan adoo mahadsan channelka soo subscribe garayso muuqaalkana laysaar mahadsanin. maantana waxaa bilaabaynaa buug cusub la magac baxay talooyin iyo tilmaamo ilayska nolosha. waxaa qoray Samatar Saxardiid Maxamuud. buuggan talooyin iyo tilmaamo wuxuu kaa caawinayaa sidaad ku heli lahayd nolol iftiin iyo ilays leh, nolol horumar iyo hore u socod leh, nolol sareedo iyo suubanaan leh, nolol tanaad iyo tisqaad leh. buuggani wuxuu ka kooban yahay mawduucyo dhowr ah oo dhammaantood si toos ah u tilmaamaya tallaabooyinka lagu helo nolol qurux badan oo badhaadhe badan. waa mawduucyo ku dhaqankoodu keenayo nolosha wanaagsan ee adduunka iyo raaxada aakhiro. sidoo kale waxaa ka qayb ah mawduuc wacyigelin ah oo ka dhan ah balwadaha. hordhac waxa aan mugdi inaga saarnayn in noloshan adduunku leedahay iftiin iyo badhaadhe uu qofku gaadho. sidoo kale waxa aan iyana meesha ka maqnayn taas ka soo horjeedkeeda oo noqonaysa in noloshu leedahay mugdi iyo madow uu qofku dhex hawaarsado. ogow oo labaduba waa midhaha ka soo goo waxa uu qofku wakhtigiisa geliyo iyo ficilka uu la yimaado. haddaba buuggan talooyin iyo tilmaamo wuxuu kaa caawinayaa sidii aad ku heli lahayd nolol iftiin iyo ilays leh, nolol horumar iyo hore u socod leh, nolol sareedo iyo suubanaan leh, nolol tanaad iyo tisqaad leh. buuggani wuxuu ka kooban yahay mawduucyo dhowr ah oo dhammaantood si toos ah u tilmaamaya tallaabooyinka lagu helo nolol qurux badan oo badhaadhe badan. waa mawduucyo ku dhaqankoodu keenayo nolosha wanaagsan ee adduunka iyo raaxada aakhiro. dhab ahaan haddii lala yimaado qodobada midka ku ah kuwa uu ka warramayo buuggani, waxaa hubaal ah in nolosha mugdi galayso. sidoo kale waxaa ka qayb ah mawduuc wacyigelin ah oo ka dhan ah balwadaha, gaar ahaan qaadka ee ragaadiyey dadka iyo dalkaba dhaqaale ahaan, dhaqan ahaan iyo horumar ahaan. ugu dambayn, mawduucyada uu ka hadlayo buuggan talooyin iyo tilmaamo waxaa tixraac u ah kitaabka qur-aanka kariimka ah iyo axaadiista nebiga sallallahu calayhi wasallam. waxa aan iyana meesha ka maqnayn qaybaha kala duwan ee suugaanta afkeena hooyo ee Soomaaliga. gaboodka aan gal daloolka lahayn. alle ka cabsigu waa gabood aan gal dalool lahayn haba yaraatee, maxaa yeelay alle ayaa ah maamulaha iyo mulkiilaha adduunka iyo aakhiraba. marka aynu ka hadlayno alle ka cabsiga, waxa aynu daliil u soo qaadan karnaa aayado badan oo ku suntan qur-aanka kariimka ah oo si cad u ammaanaya kaalinta wacan ee alle ka cabsigu leeyahay. aayadaha waxaa ka mid ah: dadkii alle rumeeyow ilaahay ka cabsada oo waxa aad tidhaandaan hadal toosan, wuxuu ilaahay idiin hagaajin doonaa camaladiina, gafafkiinana dembiyadiinana wuu idinka tirtiri doonaa. cidda alle iyo rasuulka aqbasha kaasi waa liibaanay liibaan weyn. sidoo kale waxaa jira axaadiista rasuulkeena suuban oo iyana aad u tiro badan, kuwaas oo tilmaamaya wanaaga alle ka cabsiga. waxaa dhab ah in alle ka cabsigu yahay furaha guul kasta. sidoo kale waa fududeeyaha jaranjarada dheer ee loogu jiro guusha waarta. oo sidaanu alle
ka cabsigu u keenin guul isaga oo Ilaahay maamulo adduunka iyo aakhiraba. Alle ka cabsigu waa in laga baqo oo laga dhowrsado Eebbe weyne in la sameeyo wuxuu Alle ina faray kana dheeraana wixii laynaga reebay, laguna qanco wixii aynu hayno haba yaraadee, loona diyaar garoobo maalinta aynu geediga u nahay ee aakhiro. qeexitaankan xeesha iyo xikmadaba badan waxaa laga dhaxlay Cali binu Abi Daalib oo ah khaliifkii afraad ee ummadda muslimiinta. hubaal ahaan Alle ka cabsiga waxaa soo hoos galaya dhammaan wanaagyada iyo samafalka kala duwan. haddii uu qofku yeesho Alle ka cabsi waxa uu galaa nolol macaan oo raaxo leh. waxa uu ku sugnaadaa xasilooni iyo deganaanshiyo qalbiyeed. inkasta oo ayna yarayn qisooyinka tilmaamaya wanaaga iyo dheefta Alle ka cabsigu leeyahay, haddana waxa aynu soo qaadan doonaa hal qiso. waxa ayna ku bilaabanaysaa nebigu waxa uu ka warramay 3 nin oo god galay, kadibna waxaa ku soo dhacay dhagax weyn oo ku daboolmay afkii godka ay ka bixi lahaayeen. waxa ay isku afgarteen in nin walba uu Alle ku baryo camal uu dartii u sameeyey maadaama oo ayna ka bixi karayn meesha. mid waxa uu ku Alle baryay in uu lahaa 2 waalid oo dab ahaa, kuwaas oo uu soo liisi jiray caanaha. habeen ka mid ah habeennada ayaa ay ka hor seexdeen, kadib markii uu arkay ayaa uu la dul istaagay ilaa uu waagii baryay oo ay ka soo toosayeen hurdadii. dhagaxii ayaa in yarka dhaqaaqay. mid kale ayaa ku Alle baryay inuu lahaa nin uu shaqaale ah. ninkii shaqaalaha u ahaa ayaa kaga tagay ammaano xoolo ah, kadibna ninkii lagaga tagay waa uu ilaaliyey ammaanadii oo waa uu xafiday una kobciyey. beri dambe ayaa uu ninkii xoolaha ammaanada ah lahaa u yimid ninkii uu kaga tegay, waxa aanu weydiistay ammaanadii. ninkii ammaanada ilaaliyeyna waxa uu u tilmaamay xoolo badan oo uu ku yidhi kaxayso, adiga ayaa leh. haddana dhagaxii waa uu dhaqaaqay, laakiin kama bixi karaa. tii saddexaadna waxa uu ku Alle baryay inuu ay jirtay gabadh ay qaraabo ahaayeen. gabadhii waxaa ku dhacday baahi daran. waxa ay u timi ninkii ay qaraabada ahaayeen. waxa ay weydiisatay inuu caawiyo. ninkii waxa uu ku xidhay shardi ah in ay oggolaato xumaan uu ku sameeyo. waa ay diiday iyada oo Alle ka cabsanaysa. kadibna waa uu diiday inuu caawiyo. muddo kadib ayaa ay baahidii ku sii badatay gabadhii. mar labaad ayaa ay ku soo noqotay iyada oo ka dalbanaysa caawin, isaguna shardigiisu waa halkii. markan xaaladdu way ku adag tahay gabadha waa ay aqbashay. kadib markuu damcay inuu xumaantii sameeyo ayay ku tidhi, waar Alle ka cabso oo xubinka xaaraan ha ku samayn. markuu maqlay hadalkaa ayaa uu dib isku taagay oo uu ka noqday wuxuu doonayay. gabadhiina waa uu siiyey waxa ay doonaysay. ugu dambayn dhagaxii waa uu ka faydmay. dhammaantoodna waa ay ka soo baxeen. in yar oo ka mid ah dhaxalka maguuraanka ah ee laga helo Alle ka cabsiga oo lala yimaado waxaa ka mid ah: 1 waxaa lagu helaa jannada Eebbe iyo jacaylkiisa. 2 waxaa lagu helaa kaalmaynta iyo taakulaynta Eebbe. 3 waxaa loo fududeeyaa qofka dhammaan howlaha adduun. 4 waxaa lagu helaa toosnaanta iyo in la fahmo cilmiga. 5 waxaa lagu helaa dembi dhaaf. 6 waxaa lagu helaa in laga faydo kurbada. 7 waxaa laga quudinayaa arsaaqay meel aanu ka filayn. 8 waxaa lagu helaa deganaanshiyo qalbiyeed. 9 waxaa lagu helaa in laga badbaadiyo cadaabta. hal eber waxa aad helaysaa cibaadada oo ku fududaata. talooyin iyo tilmaamo. halkaas ayuu ku eg yahay muuqaalka maanta iyo qaybta koowaad ee buuga. faldan la soco qaybaha dambe ee buuga. muuqaalka Lexar channel-kana soo subscribe garaso Instagram-ta shaashada saaran isoo follow garee, sidee kale iga soo follow garee haddii aad iga dhageysanaysay bartayda Facebook ee Abdi Adiim. mahadsanid.